بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدر الدب دل دونالد ترامب horta mowqifkiisa wax baa iska bedelay Gaza laakiin si ka siyaab badan sidii hore arintaas isdul taagana biidin Allah taala sidaas oo kale Sacuudiga isbedela socda aad u weyn ma xusuusataan Sacuudiyiinta oo intay telefishinka soo istaagaan sheega Falastiiniinta wayna wareeriyeen Israa'iil ka qaadato intay ka dhacday kada ayagoo dhahayo fanaaniin waaweyn wariyaal waaweyn ma xusuustaan hadda waxay maraysaa amiiradii qaar ka mid ah oo hadallo aan caadi ahayn ku hadlaya waa isdul taagana arintan biidin Allah taala isbedelka Sacuudiga ka socda sidaas oo kale ninkii Yoav Gallant ahaa oo lagu waarsaday Mareykanka video wasa intuu si doonaa Erdogan mowqifkiisa xogaayran ka dhehna asagana waa iska dulmarayna kaas Hamas iyo Netanyahu oo isu goodiyay labadana xogaayran dulmari doonaa aan soo bilowno boqolka Urdun oo tagay Mareykanka axadii oo tagay isniin marka adiga uu nasanayaayo almuhim yani Donald Trump uu mashquulsan yahay marka lama kulmi karo sida darteed talaado la kulmi doonaa talaado marka uu la kulmo wuxuu u bandhigi doonaa almuhim mowqifkiisa iyo wixii uu qabay iyo wixii la midka ah dabcan waa loo yeeray sidaad ogeedeen cusumada loo fidiyay arimaha la soo dusinaysa waxa kamid ah ayaga tay sheegan oo imaanayna laakiin arinta dhinaca Mareykanka ka soo baxaysa wax weeyaan waa loo yeeray waxaana dabcan ujeedada ay tahay in loo sheego aqbal wixii aan ku soo bandhignay oo ah Falastiiniinta qaado Georgi laablaabkan iyo wixii la midka ah laakiin ayaga boqortooyada iyo dawladda Urdun dadkooda waxay u sheegeen macnaha mowqifkeena rabna inaan u bandhigno iyo inaan arinta diidanahay iyo wixii la midka ah hadii lagu yeero qofkiina aad gurigiisa ugu tagto kaana awood badan xogaa iska garanaysaa wax dhici karaya laakiin hadii wax ogolaasho ah uu sameeyo waa boqortooyadii Urdun oo u dhamaata la dhihi karaa si hadii loo fiiriyo inkastoo shucuubta iska jiifaan sida ay hatab intaas ay halka arinta ka dhahnaa aan hal mar u laabano Trump hadalka ka soo yeeray oo aadka u weyn macnaha wuu isbedelay ma dhahayno tiisoo ku taagan yahay laakiin isbedel nooc kale ah weeyaan wuxuu taagan yahay hadda waxaan diyaar u nahay inaan iibsano Gaza hortii maxay ahayd waan qaadanaynaa xoogan ku qaadanaynaa annaga Falastiiniintu waan raraynaa kadibna xoogan kula wareegaynaa meesha dadkan Sacuudiyiinta iyo adduun iyo Imaaraad iyo ayno dhisaya annagana Soomaaheen hadda wuxuu leeyahay waan iibsanaynaa diyaaran u nahay inaan iibsano markaan iibsano share waxaan siin doonaa dawladaha taajiriinta ah qayb ka mid ah ayaan siin doonaa shareer inay dhisaan markay dhisaan marka hotel iyo adduun iyo maxay iyo laga dhisaya hol ganacsi arimo ganacsi kadib annaga hadda lacagtaasi qaadanayna macnaha waan iibsanaynaa annaga Sacuudi iyo Imaaraad iyo dawladahaas taajiriinta Qatar inoo dhisayaan kadib annaga dabcan ayaa iska leh ayaga share ku leeyihiin kaliya ajiib arintaasi intaan ku jirno hal mar Gaza maxaa lagu arkay waay Mareykanka arintan ugu adag yahay oo u soo celinaya bal ila dhageyso dabcan hore inuu hadda kor aan ka hadalnay laakiin and the question we all need to be asking ourselves and looking at is why does he want the land? Because I don't for a minute think it's to build shiny Trump towers and condos and the rest of it. But if America owns the land or has ownership in some way of the land, it also owns the Gaza Marine Field. Gaza Marine Field waxa la dhaho ma maqashay hadda ka hor waa qaybta badda ee shidaalka iyo gaaska uu ka buuxo ujeedada arintan loo ordaayo oo Gaza loo burburiyo Gaza inta dagaalka loogu qaaday arintan balaleeyay xataa 7 Oktoobar Israa'iil way ogeedo yani way iska daysay sababta u daysan waxay marmarsi si u heshay iyo arinta lagu leeyahay waa arintan Gaza Marine Field has 1.6 trillion cubic tons of natural gas. So gas waxa ku jira 1.6 trillion hadda u fiirso adduunkaasi marka Gaza lacag walba lagu bixiyo bahashaasi ku jirta nacfigaasi iyo nimcada ku jirta ayaa ka badan sida darteed meeshan waxa ku duugan intaas oo hantiya ku duugan dadkan marka kama faa'iideysan karaan oo waa la haystaa sida darteed ujeedada waxay tahay in laga kiciyo Donald Trump marka wuxuu u digdig leeyahay wad arkaysan Soomaa waa ila faantay almuhim hadda inuu u bedelay lahaanshihii xooga ahaa gadasho maxaad ka leedahay arinta ka warama hadda taa halkaasna uga gudbeynaa sida waxbarashada kale ee maadiga ah mala socotaa inaad ku baran karto Quraanka Kariimka hab online ka fudud kana sahlan sidii hore madrasada Islaami Quraan online ayaa kula diyaara
fasalo ku baxa hab online ah oo qof kasta uu ku biiri karo isagoo jooga gurigiisa dal iyo dibad. Waxaad baran kartaa akhriska iyo qoraalka, xifdinta Qur'aanka Kariimka, barashada tajwiidka, tafsiirka Qur'aanka, axaadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam, kutubta sharciga iyo ducooyinka. Casharadu waa kuwo live ah oo aad si toos ah ula naqaashi karto macalinkaaga, sidoo kalena lagaa caawinayo wixii aad u baahato. Haddaba ku soo biir macadka Islaami Qur'aan Online oo nagala soo xiriir nambarka WhatsApp-ka ee shashada kaaga muuqda. معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه أديكيو أساقا أسل واد وداكتان أراكيو إيتالكيو إنايانا مديريدي أقونتاد كدافتا معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Qur'aanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga, xadiiska, tafsiirka, siirada iyo luqadda Carabiga. Halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska. waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda. معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه. dhinaca kale wasiirkan Israa'iiliga wuxuu leeyahay عدي دونيسا دولة فلسطين معناها أما قبتها إن دولة فلسطين لا لسه كذا قبتها هذا دول ولا ضحي دولة داس دول كذا قسيسو نحكو جبل أنا قم أدي إنه ما منعنا إنه عدي شيكته وحن ربنا دولة فلسطين إنه دلتو ساد هذا دولة دي لنا هاي دول كذا سي دول دي هاي نونا كلوت لنا عكرة سعودي كي يسبدل ذاك السعودة وحن هردع عصميني يعني وحن أركي جني فنانين wariyaal oo Falastiiniinta wax ka sheega caaya ilaa iyo ay ku xadgudbaan aad iyo aad ugu xadgudbaan Israa'iilna amaana arintii hadda waxay isu bedelaysaa dhinaca kale cagsigeeda maxaa hadda Sacuudiga la taabtay Israa'iil Sacuudiga taabatay ogowna carabta waxa lagu abuuray ama adiga ay leeyihiin wax la dhaho intimaa lil watan yani inay adiga u damqadaan ama wadankeena wax walba naga xiga sidaa darteeda hadda Morocco iyo Algeria cadaawad u dhaxaysa ee gaamurtay marka aad fiiriso waxaad arkaysaa waxay isku hayaan wax weyn ma ahan haddana Algeeriyaanku waxay leeyihiin wadankeena weeyaan sidaa darteeda dhulka anaga iska leh Marookaanku waxay leeyihiin anaga iska leh dhulkan macna meeshan la isku haystay iyo midka saxarahan iyo kada iyo sidaa darteeda cadaawad waxay isu cadaawaysanaa maxaa ka galay markaasaad arkaysaa dad muthaqafiin lagu tilmaamayo aqoon-yahano ay tamaaya kuwan sidaas oo kale marka Sacuudi maadaama hadda ayaga la galay ee Israa'iiliintii ay galeen way isbedelayaan annaga ma taabanaysa annagoo boqortooyada Sacuudi annagoo Sacuudiyaan annagoo shaleeto maya waxba ma inay dhahin laakiin maadaama maanta ayaga la taabtay ninkan Ameerika wuxuu leeyahay Mareykanka waxaan u soo jeedinayaa hadda waa sida ogow waxaan u soo jeedinaa talo wanaagsan oo fiican waxay tahay Alaska ama Greenland marka ay yeeshaan Greenland khaasatan ama Alaskadooda naftirkeeda هسيان إسرائيل هذا جيان أيضا وحكفضت فلسطينيين إن لا رارو أما سعودي لو صورارو أما ملك الله رارو إن أي مريكان كهاي إسرائيل قيب لقد جيو نقرأ لا ولبو حوليه هاي أرنتها سي يعني ولا بكجر جهرايا ولا بكو عاونايا ديار أرنتها سي أجوه هذا ومسؤول كم الدولة السعودية أرنتها كهاد لايا إسبدل ميها مسماها أيامها صوص عضة ترامب وحميلين دونا waadna arki doontaan haradu Ilaahay dhaho oo aynan wax kala dhicin wadamo badan oo Carab ah oo shalay sida u kala jeeday dhinaca kale intaan arinta ku jirno Turkiga aan ku darno Erdogan iyo mowqifkiisa wuxuu leeyahay cidna ma qasbi karto oo xoog kuma saari karto reer Gaza arintan la iskama yeelayo Falastiin dhulkeeda waa Gaza ayaga iska leh sidaa darteed lama saari karo laakiin su'aal is weydiin lahaa waxay tahay bal haddii la saaro ka warama xoog lagu saaro maxay qaban karaan hadda soo agtooda laguma gumaadin soo agtooda wixii la sameeyay soo laguma sameeynin marka afwaakoo meel ka ama yani kulli dhamaantooda maxay qaadi karaan yani okay waxaan u soo laaban doonaa ama aan ku xijino nacam Yoav Gallant iyo sida loo ugaarsaday Gallant wuxuu joogaa Mareykanka معناها ما أهان إن ودمada muslimiinta uu joogo ama Yurub uu joogo طبعا sida ay ku soo galeen حتى waan ilaa waagi oo darad markuu tagay Netanyahu diyaaradooda waxay ka leexatay wadamo badan oo Yurub waxay sameysay macnaha safar ku qaadan lahaa مثلا tusaale weeyaan 5 saacadood ay wuxuu ku qaatay 15 saacadood yani 10 saacadood oo ziyaada ah
ayay taasoo kale yacnihi ayay ku darsadeen maxaa waxay ka leexdeen qad walba oo wadan Yurub ah oo maxkamadda yacni heshiis kula jira oo ah in la soo xiro ay intay ka leexdeen safarka dheer saas isoo wareegteen almuhim Yoav Gallant meeshuu joogaa Mareykanka meel hotel ah oo hee ka cuntay isiri raga u soo kacay oo gartay hadde waxaan caanay noqdeen Soomaali hadde wada garanaya idaacadiyo dhan social media telefishinadii soo ayagu ma saarna habeen imaalin marka qof walba garan kara waa loo yimid raga u yimid ilaa 3 meelahaas ah qaylo mar alla marka ay qaylada sameeyeen ayaa dad kale oo aanan baraarugsaneen arinta raggan ogaan ayaa soo kacay koodii marka saddexdan waxay isdahay si iska jooga oo macnaha yani wax weyn ma ahan oo kada wala aamusinaya oo security-gooda aamusinaya saas isdahayn laakiin marka ay raggan ay kiciyeen buuqa oo ay dadkii kale arkeen inuu Gallant yahay maxaa dhacay in ay ku soo shamuumeen kulligooda Gallant marka oo looga saaray hotelkii sida ugu dhaqsiyaha badan macnaha u fiirso macnaha qaybta kale xogaa waxa ku jira adig isjijiid iyo ku jira waa ka soo tagay laakiin waa markan 61,000 oo Falastiina disheen camal marka almuhim gaarigooda waa kana aad arkaysaan gaariga la saaraya wayna baxayaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadda ugu dhaq markiiba طيب taa ayaan halkaasan uga tagaynaa waxaan ku xijinayaa Hamas iyo Israa'iil oo isku dhagan Hamas waxay leedahay horta Israa'iil haye saydin yeelnay away waan leenaynaa waan qabsanaynaa intaan ka dhacaynaa away soo taad ka baxdeen Gaza oo dhan nitarim ugu dambeyn waad ka baxdeen kama baxeen waan haysanaynaa Hamas ilaa aan ka burburino away halkee ka baxday ogaaday leeyihiin dhulka annaga iskale waana sii joogi doonaa halkan Netanyahu isagana wuxuu ku leeyahay asaga heshiiska uu ka hadlaaya dabcan wuxuu leeyahay macnaha waxaan awaamir siinoo leeyahay ciidamadeena in ugu horeyn ay fuliyaan amarkii iyo maxaan ku rahay heshiiskii waliba si xoogan ay u fuliyaan waan u fulinaa ayuu leeyahay waxaana ku dhahnay ciidamadeena inaan lagu soo dhawaan eriyooyinkii aan xadidnay macnaha Hamas iska dhaafay adiga kuma dhawaanaysa dabcan ciidam ahaane laakiin shacabka Falastiiniinta ah inaynu ku soo dhawaan taa macnaheedu waxa weeyaan hadday ku soo dhawaadaan hal la dilo oo kale wixii la midka ah sidaas oo leeyahay wuxuuna leeyahay Hamasna waxaan ka rajaynaynaa inay fuliso heshiiskaasi ee isagana leeyahay almuhim marka aad isku soo duubto wixii ugu dambeyn ay Israa'iil ku adkaysanaysay oo ahaa inaynan ka bixinin ka baxday laakiin qaybtii labaad heshiiska soo socota ka adkaan doonta lagu leeyahay kii hore Trump uu soo dhaxgalay oo rababa had inuu Gaza iibsado arintaas macquul ma noqon doontaa dadka qaar waxay ku kaftamayaan ninkan waa nin adiga xagga real estate-ka guryaha iyo waxaas uu ka ganacsadaa marka wuxuu u malayaa dhulkan ama dadkan dhulkooda sidaas oo kale meel yar oo ganacsi oo macnaha ma ogaba oo ogyahay dabcan laakiin yani in hadee dhulkan uu yahay dhul ay u dhimanayaan laguna dilay kuna dhiman doonaan iyo wixii la midka ah oo macna kale ugu fadhiya intaas ayaan ku soo khatimayaa salaamu alayhi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه أديكيو أساقا أسل واد وداكتان أراكيو إيتالكيو إنايانا مديريدي أقونتات كدافتا معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Quraanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda Carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه sida waxbarashada kale ee maadiga ah mala socotaa inaad ku baran karto Quraanka Kariimka hab online ka fudud kana sahlan sidii hore madrasada Islaami Quraan online ayaa kula diyaara fasalo ku baxa hab online oo qof kasta uu ku biiri karo isagoo jooga gurigiisa dal iyo dibad waxaad baran kartaa akhriska iyo qoraalka xifdinta Quraanka Kariimka barashada tajwiidka tafsiirka Quraanka axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam kutubta sharciga iyo ducooyinka casharada waa kuwa live ah oo aad si toos ah ula naqaashi karto macalinkaaga sidoo kalena laga caawinayo wixii aad u baahato hadaba ku soo biir macadka Islaami Quraan online oo nagala soo xiriir nambarka WhatsApp-ka ee shashada kaaga muuqda